kulan wacan daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa National TV kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee siyaasadda Soomaaliya qodobada warkeena xilligan aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah Ra'iisul Wasaare Roble iyo Deni oo dharbaaxa siyaasadeed ku dhuftay isbahaysigii madaxweyne Farmaajo mucaaradka iyo lafta gareen kadib markii gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal loo doortay murashax ka socda xafiiska Ra'iisul Wasaare Roble haddaba sidee madaxweyne Farmaajo iyo mucaaradka ka yeeli doonaan arrintan qodobada kale ee wararkeena aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah wararkii ugu dambeeyay dib u bilaabashada doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya iyadoo guddiga doorashooyinka gobolada waqooyi ay soo bandhigeen odayaasha iyo ergada soo xulaysa 6 kursi oo kamid ah golaha shacabka Kenyana waxay heegan gelisay ciidankeeda inta lagu howlan yahay xuska 3 sano guurada weerarkii Dhuusid Dhiito caalamkana waxaad daawan doontaan qaramada midoobo oo ku baaqday in xuutiyiintu sii daayaan markab sita calanka Imaaraadka Carabta wararkaasi oo dhan ayaan faahfaahin doonaa fadlan daawada haddaad nagu cusub tahay subscribe saar YouTube-keena kadibna furo gambaleelka sidoo kale like saar muuqaalka si ay dad badan u daawadaan haddaad aragtidaada qaybta hoose ee commentiga noogu reebto waana kaaga mahadcelinayaa ee u diyaar garoowa faahfaahinta qodobadaasi markale kulanti wanaagsan sida aad ku daawateen hordhaca warkeena maanta waxa magaalada Muqdisho ka dhacday doorashada gudoonka guddiga doorashada heer federaal oo ka kooban 25 xubnood kuwaas oo gudoomiye cusub u doortay Muuse Geele Yuusuf kadib markii xilka qaadis lagu sameeyay gudoomiyihii hore ee guddigaasi Maxamed Xasan Ciro doorashada dhacday maanta ayaa kaliya ku koobnayd xilka gudoomiyaha maadaama aan xilkii laga qaadin ama uusan iscasilin gudoomiye ku-xigeenka guddigaasi doorashada maanta ayaa waxa ka soo ifbaxay xulafooyin siyaasadeed oo lama filaan ah ayada oo ay isku dhinac noqdeen kooxo aan la filaynin halka kuwa saaxiibo dhow ahaana ay ku kala tageen hogaanka guddigan oo ah mid muhiim u ah doorashada Soomaaliya ayaa ku loolamay 2 musharax oo taageero ka kala helayay dhinacyada siyaasadda Soomaaliya doorashadan ayaa waxaa markii ugu horeysay ay isku xulafo ka dhigtay madaxweyne Farmaajo qaar kamid ah midowga murashaxiinta mucaaradka iyo qaar kamid ah madaxda maamul goboleedyada halka Ra'iisul Wasaare Roble iyo Saciid Deni ay dhinac noqdeen Muuse Geele Yuusuf oo guddiga ka soo galay dhanka Puntland ayaa waxa uu taageero ka helay xafiiska Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni halka musharax Cabdiraxiin uu taageero ka haystay madaxtooyada Soomaaliya iyo qaar kamid ah mucaaradka ugu dambeyn waxaa tartanka ku guuleystay Muuse Geele Yuusuf oo ah musharaxii ay wateen Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynaha Puntland Saciid Deni kadib markii uu helay codad gaaraya ilaa 14 cod Cabdiraxiim Cabdicasiis Aadan oo dadka badi ay u yaqaanaan xiirane oo la soo shaqeeyay xafiiska Ra'iisul Wasaare Roble wasaaradda gargaarka iyo hay'adaha madax bannaan ayaa isna helay 11 cod wuxuuna ahaa musharaxii ay wateen Villa Soomaaliya madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo qaar kamid ah xubnaha mucaaradka xubnaha qaar ee guddigan ku jira ayaa wax la yaabo ku tilmaamay inay arkeen xubnaha Farmaajo iyo kuwa mucaaradka oo si wada jir ah ugu ololeynaya Cabdiraxiim xiirane macada sababta ay mucaaradka uga soo horjeesteen musharaxa uu watay Deni balse waxa la rumaysan yahay inay diidan yihiin in awoodda guddiga ay si buuxda ugu gacan gasho Deni oo ah murashax madaxweyne waxaa sidoo kale suurtagal ah inay taageerada Cabdiraxiim ay doonayeen inay ugu dhawaadaan madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen oo watay musharaxan Muuse Geele Yuusuf oo madax ka soo noqday gobolka Bari ayaa waxa loo arkaa inuu wax badan ka tari karo musharaxnimada Saciid Deni oo kamid ah musharaxiinta ugu cadcad sanadkan guuldarada soo gaartay Villa Soomaaliya iyo xulafadeeda ayaa ka dhigan in maamulka guddiga doorashada heer federaal uu la wareegay Roble oo xoogiisa isugu geeyay sidii uu u maamuli lahaa doorashada dalka haddaba adigu sidee u aragtaa doorashada maanta ka dhacday Muqdisho iyo garabka Roble oo qaatay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal si aad ula socoto wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka subscribe saar YouTube-keena kadibna furo gambaleelka sidoo kale like saar muuqaalka si ay dad badan u daawadaan markana waxaa maanta iyo beri la filayaa inay Soomaaliya ka bilaabato doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya oo muddo hakad ku jirtay ase yeeshee sida lagu wado haatan ay tahay in la soo gabagabeeyo 25 Febraayo ee soo socota
magaalada Baydhabo ayaa la filayaa inay beri ka bilaabato diiwaangelinta 5 kursi oo la shaaciyay in toddobaadkan lagu dooranayo magaalada Baydhabo. sidoo kale guddiga hirgelinta doorashooyinka gobolada waqooyi ayaa shaaciyay maanta odayaasha iyo bulshada rayidka ah ee soo xulaya ergada. guddiga ayaa shaaciyay odayaasha dhaqanka iyo xubnaha soo xulaya ergada 6 kursi oo ka mid ah golaha shacabka. ku dhawaad 241 xildhibaan ayaa la doonayaa in muddada u dhaxaysa 5 iyo 10 bisha Janaayo oo maanta ka bilaabanaysa iyo 25 bisha Febraayo lagu soo doorto xilli hore loo soo afjaray doorashada aqalka sare. dowladda Mareykanka ayaa baaqyadii ku aadanaa arrimaha doorashada haatan ku bedeshay hanjabaad ka dhan ah dhammaan madaxda saameynta tooska ah ku leh doorashada Soomaaliya. waa haddii doorashada golayaasha baarlamaanka lagu soo dhameystiri waayo xilliga loo asteeyay ee 25 Febraayo ee 2022. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Ned Price oo luuqad adag ku hadlay ayaa yiri Mareykanka wuxuu diyaar u yahay in uu qaado tallaabo ugu haboon oo ay ka mid tahay xayiraado dhanka dalku galka ah si looga jawaabo in dib u dhac doorashada iyo tallaabooyinka kale ee carqaladeyn karo hufnaanta doorashada. waa hagaag weli baahinta wararkeena ayaan ku jirnaa markana Kenya. dowladda Kenya ayaa sheegtay inay heegan gelisay ciidamadeeda ammaanka si ay uga hortagaan weerar kaga yimaada dhinaca Al-Shabaab sida uu warbaahinta u sheegay afhayeenka booliiska Bruno Shiozo. ciidamada ammaanka ayuu tilmaamay afhayeenka in feejignaan sare la geliyay inta lagu howlan yahay xasuusta dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkii Dusit D2 ee magaalada Nairobi ka dhacay 15 Janaayo sanadkii 2019 maanta oo kale. sarkaal ka tirsan hay'adaha ammaanka Kenya ayaa laga soo xigtay in xusuusta xukuumadda Nairobi aanay ka go'in in weerarkaasi ku bilowday gaari lagu soo raray walxaaq qarxa oo lala egtay goob muhiim ah oo ay isugu tagi jireen dad kala duwan. Kenya waxa ay sheegtay in kooxda weerartay hotelka Dusit D2 ay wateen hub kala duwan, bambooyin gacanta laga tuuro iyo gaariga ay ku bilaabeen weerarka lagu soo raray walxaaq qarxa. xukuumadda Nairobi ayaa qasaaraha dhimashada weerarkaasi ku sheegtay 22 ruux oo ay ka mid yihiin 5 qof ee fulisay weerarka iyo dhaawac 27 kale, balse wararka ayaa sheegaya inuu intaasi ka badan yahay maadaama dagaalku uu socday in ka badan 24 saac. ehelka dadka dhibaatadu ku gaartay weerarka ayaa Kenya ka dalbatay in dhiiga dadkooda meel loogu sheego ama la tuso dad loo ciqaabay inay ka dambeysay falkaasi. waxa ay qaraxaasi ku tilmaameen in uu bedelay noloshooda. caalamka haddaan eegno, golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo sii daayo markab uu ka babanayo calanka Imaaraadka iyo shaqaalihii la socday oo ay Xuutiyiinta Yemen haystaan tan iyo bilowgii January. isbahaysiga Sacuudiga uu hogaamiyo ee taageeraya dowladda caalamku aqoonsan yahay ee Yemen ayaa sheegay in markabka Rawabi uu ka soo laabtay howlgal uu ku doonayay in uu ku hirgeliyo xarun caafimaad, waxayna ku tilmaameen afduubkiisa fal burcadbadeednimo. balse kooxda ay Iiraan taageerto ee Xuutiyiinta ayaa soo bandhigay muuqaalo ay ku sheegeen inay ahaayeen agab military iyo hub saarnaa markabka kaas oo laga qabtay dekedda muhiimka ah ee Xudayda ee Badda Cas, halkaas oo ay falaagadu ku xoogan tahay. bayaan ay soo diyaarisay Britain ayna si wadajir ah u ansixiyeen 15 xubnood ee golaha ammaanka ayaa lagu dalbaday in si degdeg ah loo sii daayo markabka iyo shaqaalihiisa, waxaana hoosta looga xariiqay baahida loo qabo in la huuyo badqabka shaqaalaha markabka saaran. warqadda uu Imaaraadka dhawaan u diray qaramada midoobay ayuu ku sheegay in shaqaalaha markabka saarnaa ay ka kooban yihiin 11 xubnood, 7 Hindi ah iyo kuwa kale oo u kala dhashay Ethiopia, Indonesia, Myanmar iyo Philippines. hagaag wanaga inta warkii aad ka daawanayseen barteen YouTube-ka ee National TV, waad ku mahadsantihiin daawashada iyo la socodka wararkeena. ka mid noqo saaxiibada ku xiran halkan adigoo subscribe inoo saaraya kadibna furanaya gambaleelka. nabadgelyo.